Muqdisho dad lagu karantiilo. Wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya Khadiija Maxamed Diiriye ayaa si weyn uga soo horjeestay go'aanka xukuumadda Soomaaliya ay ku doonayso in ay garoonka Muqdisho ay noqoto goobta lagu karantiilo dadka looga shakiyo cudurka COVID-19. Waxa ay sheegtay in garoonka Muqdisho ku socdo dayactir isla markaana uu marayo meel gabagabo ah si loo dhameystirana aysan macquul ahayn in dowladda dhexe ee Soomaaliya ay keento dad looga shakisan yahay coronavirus-ka. Waxa ay sidoo kale sheegtay in garoonka ay ka howlgalaan ciidamo ka badan 100 askari iyo shaqaale isugu jira Soomaaliya ajnabi oo ku howlan dhismaha garoonka iyo xaqiijinta ammaankiisa. Waxa ay sheegtay in marnaba aysan aqbali doonin tilaabada xukuumadda ee ah in goobtaasi noqoto bar karantiil. Hadalka wasiir Khadiija ayaa yimid kadib markii agaasimaha wakaaladda dhismaha qaranka mas'uuliyiin ka socday ciidanka asluubta iyo gobolka Banaadir ay shalay shaaciyeen in goobtaasi ay noqon doonto goobaha karantiilka. Dowladda waxa ay sheegtay in garoonka lagu karantiili doono ku dhawaad 500 oo ruux oo ciidamo u badan kuwaas oo laga soo celinayo dalalka Djibouti, Masar iyo Sacuudiga. Maryan Maxamed Cali, Wadani TV and Radio.